madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shir guddoomiyey shirka toddobaadlaha ee amniga iyo cadaaladda oo looga hadlayay dardargelinta howlaha iyo halbeegyada hay-adaha iyo wasaaradaha ku midaysan tubta ee la xiriirta sugidda amniga iyo horumarinta cadaaladda dalka. waxaana shirkani ka qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre, wasiiro, taliyayaasha ciidanka qalabka sida iyo hay-adaha amniga gobolka. madaxweyne farmaajo ayaa u sheegay dhammaan hay-adaha iyo wasaaradaha halbeegyadani ku leh in lagula xisaabtami doono fulinta halbeegyadii ay kula heshiiyeen ra-iisul wasaare xasan cali khayre inay ku dhammaystirayaan sanadkan 2019. tubta amniga iyo cadaaladda oo ka mid ah 4 tubood ee qaranka ee lagu saleeyey barnaamijka xukuumadda ayaa halbeegyadeeda ugu weyn waxaa ka mid ah dhammaystirka qorshaha kala guurka ee ciidanka qaranka ay kula wareegayaan amniga dalka iyo hagaajinta hanaanka cadaaladda. maxamed macali mustafa, Carlson TV, Muqdisho.